in wadada soddonka la dhisaayo waxay ka mid tahay kow in bilicda magaalada la soo celiyo labo in dadka Soomaaliyeed loo fududeeyo nolosha magaalada iyo saddex waxay qayb weyn ka tahay in amniga magaalada wax laga qabto jidadkoo la dhisay waxay macno weyn ka taraysaa in amniga magaalada si wanaagsan loo sugo xukuumaddu waxay iyadoo kaashanaysa gobolka Banaadir iyo ganacsatada waxay ka dhiiban doontaa qaybteeda haddii Ilaahay yiraahdo in wada walba oo magaaladan iyo dalkaba ku taala haddii Ilaahay yiraahdo la dhiso waxaan dadka Soomaaliyeed ee magaaladan ku dhaqan kula dardaarmaya gudoomiyahana aan ku boorinayaa in jidadka magaaladana la dhiso ayagoo dhan magaalada bilicdeedana in la soo celiyo haddii Ilaahay yiraahdo magaalada bilicdeeda in la soo celiyo oo la nadiifiyo iimaankeena ay qayb weyn ka tahay dawladnimada ay qayb weyn ka tari doontaa shacabka Soomaaliyeed waxaan ugu baaqayaa meel walba ay joogaan inay ka qayb qaataan dib u dhiska dalkooda ganacsatada Soomaaliyeed is abaabushay aad ayaan ugu mahadcelinayaa ganacsatada ka shaqeysa dhisidda jidadka iyagana si gooniya ayaan ugu mahadcelinayaa waa mahadsantiin wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh